barashada iyo sayniska mudane Axmed Maxamed Diiriye Toorno ay weheliyaan safiirka Soomaaliland u fadhiya Washington DC Danjire Bashiir Cumar Good iyo qunsulkiisa Yaasiin Maxamed Mure oo maalmihii u dambeysay ku sugnaa waddanka Mareykanka ayaa waxa kulan shaqo ay la qaateen madaxda ugu sarreysa Global Education for Partnership oo ah deeq-bixiyaha maalgelinta ugu ballaaran ka geysta dhinaca waxbarashada in ka badan 88 dal oo ka mid ah wadamada adduunka oo Soomaaliland ay ku jirto. waftiga wasiirka wasaaradda waxbarashada ee maalmihii u dambeeyay ku sugnaa waddanka Mareykanka iyo mas'uuliyiinta Soomaaliland oo qaabilsan waddanka Mareykanku kulankaas ay la qaateen madaxda mashruuca GBE waxa arrimaha ugu muhiimsan ay kaga wada hadleen ka mid ahaa mudnaanta horumarinta waxbarashada Soomaaliland ee 5 sanadood ee soo socda aasaasidda sanduuqa horumarinta waxbarashada Soomaaliland oo ay wada maalgelinayaan dowladda Soomaaliland deeq-bixiyaasha dowladaha hoose ee Soomaaliland ganacsatada iyo qurbo-joogga reer Soomaaliland iyo ugu dambeyntii abuurista sanduuqa gurmadka xaaladaha degdega ah oo dhaqso uga jawaabi kara xaaladaha degdega ah ee la xidhiidha arrimaha waxbarashada. waxaana wasiirka iyo waftigiisu maalmaha soo socda ay kulamo kala duwan la yeelan doonaan dhammaanba daneeyaasha kala duwan ee dhinaca waxbarashada ee Soomaaliland kala shaqeeya arrimaha horumarinta.